السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضا وديال كسو دوادا وركي ورباهين تدلجر وهبينيمو تلادا يسيب بحيسو أربعنا سوغليسو تاريخ دو أيكو بيغان تهاي كودا بيشا طبناد ألوبكون يسغالي طبان قضبادا عاوة وركا أتكو داوان دونتانا وحكاميدا شركة مدشا إسكاشيغا صوماليا أو كفر مي بقالة مقدشو إيو بوتلان وقاد عضي حيرلاليها وجود دولة صوماليا أو بوقضي حبسيغا وين قروه شيغين إن محابيس لو ريجين دونو مقالة مقدشو وزيرka caafimaadka maamulka Puntland oo daahfuray shir looga hadlayay biyaha wasakhaysan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin. wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo furay shirka maalgelinta haweenka haysta ganacsiga yaryar. akhbaaraadka dhanka dibaddana waxaan idinku haynaa wiilka uu dhalay wariye Jamaal Khashoggi oo taageeray Sacuudiga. intaas waxay hayeen qaar ka mid ah warka warbaahinta daljir hase ahaatee u diyaar garooba isagoo faahfaahsan. dhakhtarka neerfaha ee Hargeysa dhimirkiiyo laxaadkiiyo xanuun dhuuxa raaciyo kii dhiba naftaadii haddii aad dulyaal tahay dusha korona dhamac iyo dhimbilkaaga shidan tahay dhakhtar baaro cudurkoo dhibta kaa daweeya dhulka hooyo joogee ha u dhoofin dibadda dhab u fiirsa waayaha dhakhtarka neerfaha ee Hargeysa. maskaxdoo la qalo iyo maankoo dawoowaa miyirkaagu soo noqon dhakhtar maanta joogana kii ugu mudnaabaan magaciisa ku helay waa mudan midkaa mudan dhakhtarka neerfaha ee Hargeysa. dhakhtarka neerfaha ee Hargeysa wuxuu daweynayaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka iyo kaliyaha qaliinka kaadi haysta iyo kaliyaha. isbitaalka waxa kuugu diyaara Dr. Samson oo ku takhasusay urology-ga iyo general surgery-ga. qaybaha urology-ga burburinta dhagxaanta kaliyaha, burburinta dhagxaanta dhuumaha kaadi mareenka, burburinta dhagxaanta kaadi haysta, qaliinka fiixaha kaadi haysta, hagaajinta dilaaca kaadi haysta, qanjirada kaadi mareenka, qaybaha qaliinka guud ee qabsinka, qaliinka xiidmaha kala xiran, qaliinka xameetida, qaliinka fiixaha caloosha, qaliinka baabasiirka, qaliinka boogaha dilaaca, qaliinka fiixaha cunaha, qaliinka kansarka caloosha. xarunta Hargeysa Neurology waxa ay ku guuleysatay ilaa iyo 340 qaliin oo maskaxda waxaana sidoo kale kuugu diyaara sheekh dadka la qalo ku akhrinayo quraanka. qaliimada hadda isbitaalka lagu soo kordhiyay waa qaliimadii dalka dibadiisa loo tagi jiray. xarunta Hargeysa Neurology waxa ay ku taallaa sariibada inji ee magaalada Hargeysa intaan la gaarin goolada Total. waxay inta dheer kala xiriir eber 63 412 8844 ama eber 63 35 eber 5 eber 88 ama eber 659 128 844. hore u gaar dhakhtarka neerfaha ee Hargeysa. waxa magaalada Muqdisho ka furmay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya kaas oo ay ka soo qayb galeen ilaa 50 dal. Puntland ayaana shirkaasi aan ka qayb galin. waxa warbixin umuurtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho inoo ka soo diray wariyeena Cabdiraxmaan Waabari. magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxa maanta ka furmay shirka iskaashiga caalamka ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxaana shirkani hore loogu qaban jiray dalalka Yurub. shirka waxa ka qayb galay in ka badan 40 dawladood xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo marsharaf kala duwan oo shirkani lagu casuumay. ugu horeen waxaa shirka daafray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya waxyaabo badan ay ka qabatay dalka oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo sharciyo kale. isagoona sheegay in sidoo kale shirka lagu soo hadal qaaday sidii loo dirdirgelin lahaa amniga dalka isla markaana looga saari lahaa deegaanada iyo degmooyinka al-shabaab weli ay ka arrimiyaan. Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habeynta amniga ciidamada si xoogganna loo jabiyay cadowga nabadiidka meel fiican ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka. sidoo kale waxa shaqo fiican ka socotaa wax badan laga qabtay arrimaha dhaqaalaha dib u habeynta dhaqaalaha
iyo SNB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama anagu dawladdan markii la dhisay aanu xooga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukumaysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa kale oo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada marka dhinaca dhaqaalaha dib u habeyntiisa iyo in mushaharooyinku bil kasta u soo dhacaan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda adeeg kasta oo la qabtaana uu si sharci ah uga baxo wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha xisaabaadka ku shaqada leh systemkaasi si fiican ayuu u shaqeynayaa idinkuna markhaati baa ka tihiin ummadda Soomaaliyeedna markhaati bay ka tahay waa horumar weyn oo aan dhinaca dhaqaalaha ka sameeyno waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dib u habeynta dastuurka oo 15kii chapter farsamo ahaan dhameystiran yihiin sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirrada ansixiyay hor yaalla golaha shacabka oo ka doodaya hadda marka ay imaka furmaana la hor keeni doono si Soomaaliya 50 sanadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah hal qof iyo hal cod ku dhisan si xor ahna shacabweynaha Soomaaliyeed toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda marka taana sharciga iyo baarlamaanka u hortaala inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo waxa kale oo wax weyn aan ka qabanay arrimaha bulshada dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo gurmadka gargaarka degdega xuquuqul insaanka oo wax weyn ay Soomaaliya record fiican maanta marayso si fiican taabagal iyo dabagal loogu sameeyay gudida xuquuqul insaankuna xulisteedii ay meel wanaagsan marayso Soomaaliya waxay la bariisantay dikhawga cimilada isbedelka cimilada adduunka oo dhibaato culus ku haya deegaanka dhibaato culus ku haya xoolaha xaalufinta dhirta oo loo bedelo dhuxul lana dhoofiyo oo laga ganacsanayo isaguna dib weyn ku haya deegaankii iyo abaaraha soo noqnoqda oo ay sabab u tahay isbedelka cimilada adduunka barakicinaya dadkii markasta uu roobdo daadad fataha oo xaalufiya dalagii baabiya deegaankii iyo marka abaaruhu dhacaan oo mar labaad xoolihii iyo dadkiiba dhibaato weyn u haysta Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu nugul isbedelka cimilada adduunka waxaan isleeyahay shirkani wax badan ayaa uu kaga hadli doonaa aynuna ka qaban doonaa sidee baan fikir iyo ra'yi isugu biirinaa in adkaysiga iyo dib u soo nooleynta deegaanka Soomaaliya oo 30 sanadood u dambeeyay dhibaato baan lagu hayay dib looga shaqeeyo dhiraynta bilicda deegaanka wanaajinta deegaanka la dagaalanka waxa xaalufiya ama badda ha noqoto ama dhulka ha noqoto deegaanka intaasiba waxay tahay waxyaabaha aynu isleenahay waa kaga hadli doontaan shirkeenan maanta iyo berri socon doona ajanda dheer baynu leenahay waa maanta waa maalinta ugu hawlaha ugu waaweyn dhacayaan waxaan isleeyahay waqtiga si fiican baydun uga faa'iideysan doontaan qof walbana waxa uu ku koobnaan doonaa mawduuca wixii aan laga tageena in uu ka hadlo arinta kale ee aan doonayo inaan taabto waxa weeye iskaashiga labada dhinac oo afka qalaadna aynu ku nidhaa partnership principles inaynu kaga hadalno iyo maaf oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac mid walba u yaal laga rabaa dawladda Soomaaliya 15 bilood ilaa 2020 December maxaa noo qorshaysan ay tahay inaanu qabanno dhameystirnana beesha caalamku 15 bilood ee u haray mandate-ka xukuumaddan dawladdan maxay wax nagala qaban karaan iyo aakhirkii inaynu ka heshiino war murtiyeedka ka soo baxaya fadhigeena maanta iyo berrito waa mahadsantihiin shirku si rasmi ah inoogu furan yahay shirka wadatashiga caalamka ee Soomaaliya ee Muqdisho ka furmay ayaa la filayaa in maalinta Baritaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyo isla markaana ay ka qayb galaan madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyadoona shirkani laga soo saari doono warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la xiray wadooyin muhiim ah oo ku yaala magaalada kuwa loo diiday inay isticmaalaan gaadiidka ka howlgala degmooyinka gobolka Banaadir marka laga reebo gaadiidka ay leeyihiin dawladda Soomaaliya oo wadooyinka isticmaalayay Cabdiraxmaan Wabri warbaahinta Daljir Muqdisho xeerlaaliyaha guud ee dawladda federaalka
ee Soomaaliya ayaa waxa uu booqday xabsiga weyn ee magaalada Garowe isagoo sheegay in maxaabiista qaar ka mid ah loo wareejin doono magaalada Muqdisho waxa warbixin ku saabsan inoo diyaarisay wariyaheena Hodan Sulubdiin xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir ayaa kormeer shaqo waxa uu maanta ku tagay xabsiga weyn ee Garowe halkaas uu kula kulmay maxaabiis u xirxiran arrimo burcad badeednimo kuwaasi oo laga soo celiyay xabsiga dalka Shiishalis maanta bisha tahay 1 bisha Oktoobar xeer guud ee qaranka wuxuu kormeer ku yimi xabsiga dhexe ee magaalada Garowe oo la soo kulmay oo soo maray taliska ciidanka asluubta waxay halkaas ku wareysay saraakiisha ciidanka asluubta kadibna waxaan tagnay xabsiga saan ugu kulgalno xaaladda maxaabiista xabsiga ku xiran waxa kale oo boqoshadiisa ay ka mid ahayd inuu la kulmo maxaabiist laga keenay xilli hore Shiishalis laga soo wareejiyo oo ku eedeysnaa burcad badeed oo la doonayay qaybo ka mid ah oo codsaday in loo wareejiyo xamar inuu la kulmo kuwaasna way is arkeen waxayna ka wada hadleen maxaan ku yiraahdaa sidii loo celin lahaa iyo waqti la celin lahaa arrintaasuna insha Allah waxay ku soo dhamaatay gulbay ku soo dhamaatay war baa jiray ahaa in qayb ka mid ah ay ka noqdeen oo yiraahdeen ma noqonayno halkaan joogina arrintaasna waa la xaqiijiyay qayb ka mid ah way yiraahdeen annagu waa joogina halkaan joogina waana noqonayna hadii aan marka arrintaas ay ahayd socodkuna intaas ku saabsanaa arrintaasna waa soo dhamaatay wixii hadda diyaar ah in la celiyo insha Allah magacyadoodii iyo raboodkoodii baan kala qaadanay si degdeg ah xabsiga loogu geyn doona xabsiga loogu wareejin doona looga qaadi doona xabsiga Garowe waxa lagu wareejin doona xabsiga xamar insha Allah cusub hadii la idmo UNDC ayaa la kaashanayna qaadistooda hadii la idmo iyaduna maanta goobjoog ka ahayd oo xabsiga dadka la qaadayo tiradooda iyo iyaguna marka hay'adaas kala kaashanayna qaadistooda iyo dawladda Puntland dawladda federaalka inta way kaashanayaan insha Allah Hodan Sulubdiini warbaahinta Daljir Boosaaso wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa furay shirka maalgelinta haweenka haysta ganacsiga yaryar warbixin ku saabsan arrinkaasi waxay noo diyaarisay Zainab Cabdinuur Maxamed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya Sadiq Xirsi Warfaa ayaa Muqdisho waxa uu maanta ka daahfuray mashruuc maalgelineed oo shaqo abuur loogu sameynayo haween Soomaaliyeed wasiirka oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in dumarka Soomaaliyeed ay tahay in ay helaan fursado maalgelin muhiimadeedu ugu ballaaran waxay tahay sidii dumarka iyo dhalinyarada fursad loogu abuur lahaa oo dalkan shaqo abuur looga heli lahaa maanta tusaale ayaa waxay tahay oo la soo bandhigay aragtiin waxyaabaha inta yareed aan joognay iyo waxyaabaha aan damacsannahay inaan qabanno oo ah in dumarkeenna kama tagi karno haaf ka mid ah oo bulshadeena kama tagi karno in mataqaanaa marka ay u helaan access u helaan ee helaan mataqaanaa ay fursad u helaan in la maal gashto si mataqaanaa ay dhaqaalo u abuurtaan waxyaabaha muhiimadda ugu weyn xukuumaddan ayay ka mid tahay إن شاء الله تعالى فرصة لابورة ديلاهن مركب ما أنت إن إدين فرو وأن كرتي كفر حسنا هاي إن وضع الشقين دونا أن لين هاي والرضا شقالها يورك جناحسك الصوماليات وهذا برنامج أن كوضع الشقين دون decent work program of the country دمان لقفر الدونه إن شاء الله تعالى تلك المركب دمان لو سوى الجيست ولا وضع الشقين أيام مشاريع الإيمان سديلاهن لكن أنتي فرصة قالية وحرجت دونا dadkan ka faa'iideysteen iyo kuwa kale looga faa'iideeyo doona hadii la haydo iyadayda hadii aan ka hadlo IDS iyo ILO isoo socdo aniga ganacsigayga waxa waaye wadani foods baa la dhahaa wuxuu soo saaraa cuntada wadaniga ah gaar ahaan hadda waxaan sameeynayna oodkaca iyo timirta oo muddo sanad iyo bar camal ka soo shaqeynayay IDS waxay ahayd bagi ugu horeeyay nasiyo maalgelin ama support ganacsigeena ku saabsan waa kaga mahadcelinaynaa markii hore ma aynan haysanin aniga walaalinta muslimiinta ah oo ku shilin haysana oo dhulka yaani marole gooyaano oo dambiil iyo ay gaariga aan wax niisheena ABS iyo iskaashtooyinka waxaan soo aasaasay inaan lacag nasiyan $500 $500 ilaa waxaan inka dhigay wax badan oo qeyr badan ah inaan ku soo bandhigno guulihii laga gaaray barnaamijka microfinance-ga barnaamijkaas oo soo socday muddo ilaa hadda 4 sano ku dhow barnaamijkan ABS bank inta badan wuxuu ka saaray ahayd inuu haweenka ku dhiirigeliyo
barnaamijkani markay waxaa ka faa'iidaystay haween aad u tiro badan number badan gaaraya ilaa iyo 4,000 ilaa 5,000 oo qofood ayaa barnaamijka ka faa'iidaystay. Zainab Cabdinuur Maxamed, warbaahinta Daljir, magaalada Boosaaso. wasiirka caafimaadka maamulka Puntland ayaa daahfuray shiraha looga hadlayo dhibaatooyinka laga dhaxlo biyaha wasaqaysan. wasaaradda ayaa diiradda saaraysa caqabadaha ka jira nadaafadda biyaha, waxaana shirkaasi ka soo qayb galay madaxda shirkadaha biyaha iyo hay'adaha ka taageera Puntland mashruucan. The wash section covers quite a wide area, and that is why we have very many ministries and partners and actors that we are working with in the sector to look at the different challenges, or what we call the bottlenecks that afflict the sector. shirka waxaynu kaga wada hadli doonaa caqabadaha hortaagan biyaha iyo nadaafadda Puntland. shirkaasi wuxuu noqon doonaa dhowr qaybood. marka hore waxaan ka hadlaynaa caqabadaha guud oo hortaagan washka oo biyaha iyo nadaafadda iyo ku saabsan. waxaynu isu qaybin doonaa shan hawlood baynu gelaynaa. caqabadaha hortaagan biyaha tuulooyinka, caqabadaha hortaagan nadaafadda tuulooyinka, caqabadaha hortaagan biyaha magaalooyinka, iyo caqabadaha hortaagan iskuulada iyo xarumaha caafimaadka biyahooda iyo nadaafadooda. intaan markaan samayno baan waxaan samaynaynaa caqabadahaas maxaa xal u noqon. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay caqabadaha looga doodayo maalmaha uu shirkan u socdo. caqabadaha ka jira biyaha nadaafadooda hadii ahaan lahayd helitaanka in bulshada reer Puntland ay hesho biyo nadiif ah, waxaasoo dhan marka saddex maalmood waxaa dilahaydno bottleneck analysis waxa la yiraahdo oo ah in leesla garto maxaa caqabadaha ka jira iyo see wax loo qabanayaa hadii ahaan lahayd nadaafadda biyaha, baahiyaha biyaha iyo xarumaha caafimaadka oo cusbitaalada iyo MCJ biyaha u baahan yihiin, iskuulada iyo goobaha waxbarashada biyaha u baahan yihiin. waxaasoo dhan ayaa hadii lahaydno lagu falanqayn doonaa, waxaana lagu diyaarin doonaa hadii lahayd miisaaniyad baahida biyaha Puntland ay u baahan tahay sidii wax loo qaban lahaa hadii ahaan lahayd xagga nadaafadooda, quality-ga biyaha bulshadu u baahan tahay inay cabto, iyo helitaanka biyo nadiif ah ee xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo cid kasta oo runtii goobaha shaqada loo baahan inay biyo laga helo. waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo wadamadii maalgeliyay mashruucan washka iyo hay'adda UNICEF oo iyaduna implementationka ama fulinta iska leh, iyo dadka kale ee mashruucan ka soo shaqeeyay haddana ka sii shaqeyn doona insha Allah ayaa rabaa inaan u mahad celiyo. wasaaradda caafimaadku inkastoo ay lead ka tahay arrimaha hygiene-ka biyaha, haddana sida muuqata wasaaradda badan iyo hay'ado badan baa ku shuqul leh hawshan, iyaguna runtii aad bay u mahadsan yihiin. waana muhiim in laga wada shaqeeyo hawshan iyada. waxaan rajaynayaa in aad si fiican isu dhaafsataan aaraada, la ogaado ama la xalliyo caqabadaha hortaagan sidii biyaha macaan loo heli lahaa, dabadeedna wixii xalka ahaa insha Allah looga gudbo. ayaan rajaynayaa 3 maalmood ka bacdi inay halkan ka soo baxdo. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa warbaahinta Daljir. haatan akhbaaraadka dibadda. wiilka uu dhalay saxafigii reer Sacuudi ee la dilay Jamaal Khashoggi heshiis lacageed oo lala gaaray dowladda Sacuudiga. wiilka ayaa difaacay boqortooyada Sacuudiga ka hor sanad guuradii ka soo wareegtay dilkii aabihiis. saxafiga la dilay oo ahaa xogogaal ku dhex jiray qoyska boqortooyada isu bedelay dhaleeceeye ayaa 2 Oktoobar 2018 lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. howlgal ay fuliyeen 15 sarkaal oo laga soo diray Riyadh meydkiisa oo ilaa iyo hadda aan lahayn. 11 ka mid ah dadkaasi oo loo aqoonsaday inay dileen wariyahaasi ayaa maxkamadda ku wajahan. wargeyska Washington Post ayaa 1 Abriil wariyay in caruurta Jamaal uu Saalax ku jiro la siiyay lacag aad u fara badan.
guud ahaan daawadayaal warkii warbaahinta daljir waa naga intaa warka anu Faadma Degara ay idinla socodsiinayay aniga iyo bahda igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.